بسم الله waxaan halkan u nimid shir loogu talagalay inay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay ku wada hadlaan iyadoo ujeedadu ahayd shirkan hadda meeshan loo yimid waxa suuroodaba inuu shirkii sagaalaad yahay shirar fara badan oo ka horeeyana waa dhaceen oo ay dawladihii ka horeeyay dawladdan ay qaban qaabiyeen iyo wadamo saaxiib ah kan waxaa aad uga soo qayb galay dhinacyadii la rabay inay isu yimaadaan oo runtii miisaan buuxa ku yimid dhankayaga waxaa yimid madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa yimid ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaa yimid gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal miisaan aad u weyn ku nimid ayaguna waxay ku yimaadeen intoo kale madaxweyne Muuse Biixi ra'iisul baarlamaankii wasiirro badan oo ka tirsan kabinetka Somaliland regionkana runtii aad iyo aad u soo cusleeyeen mahad ka gaarto madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo arrinkan soo qaban qaabiyay dad badan oo ku soo cazumay oo kamid ahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxaa joogay oo mas'uuliyiin waaweyn ka joogeen IGAD dowladda Mareykanka midowga Yurub shirku marka guud ahaan wuxuu ahaa shir aad iyo aad looga soo qayb galay oo la soo cusleeyay wafdigii reer Somaliland waa fariisanay 4 maalmood ayaan ka hadlaynay arrimo kala duwan aad iyo aadna waa u kala boganay waxaan ka bilownay inaan ka hadalno ajenda aan u garanaynay inaan u baahanahay si wada hadalku ugu dhaco jawi kalsooni leh markii aan ka gudubnayna kalsooni dhisidii waxaan u gudubnay arrimihii la rabay in laga hadlo oo labada wafdi ay ka hadlaan waxaan ku bilownay inaan dhageysano waxyaabo tabashooyina oo wafdiga Somaliland ay soo gudbiyeen oo huseynayay kaalmada caalamiga oo wadanka la siiyo iyo arrimo kale oo badan arrinkan maamulka hawada Soomaaliya qodobo sidaas oo ay tabanayeen in horena looga hadlay wax qabadkoodina ama wax ka dhiman yihiin ama uu wada dhiman yahay arrimahaas oo isla meel dhignay si fiican isla meel dhignay laakiin arrinka masiiriga runtahay wuxuu ahaa in Soomaaliya 1960kii markii la sameeyay qaybtii Soomaaliyeed oo Ingiriiska xorriyadda ka qaadatay iyo qaybtii Koonfureed oo Talyaaniga xorriyadda ka qaadatay ay wax isku darsadeen 30 sano la wada joogay taariikh ahaanna hadda marka arrimahan Soomaaliya iyo Somaliland laga hadlaayo waxaa la soo qaadaa tabashooyin muddo dheer ah oo mararka qaarkood siyaasiyiinta qaarkood ba ay gaarsiiyaan waqtiga xorriyadda ama waqti ku dhow arrimaha 30 sano oo dambe taagnaa oo gooni isu taaga Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladihii ka horeeyay ama dowladda rasmiga ahaa ama ku meel gaar ah oo dareynayay in lagala hadlo bal wixii tabashooyina in la arko wixii hore nooga xumaaday in la arko dadkani kalama marmay aan isku soo laabano iyadoo mabda uu yahay inaan wada joogno oon hagaajino waxyaabaha ay tabanayaan ayagu isku soo noqodkaasi uu noo yeelo awood dadnimo iyo mid dhaqaale labadaba intaas anagoo danaynayna waxaan ka hadalnay in arrimahan iyaga ah oo laga hadlay ama tabashooyinka ha ahaadaan ama hore in loo socdo ha ahaadaan in loo sameeyo guddiyo 3 guddi oo guddi walba uu la xaalayo mowduuc gaar ah guddi walbaana wuxuu isugu jiraa xubno ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda Somaliland guddiyadaas farsamo waxay isu imaanayaan
bisha aan dhaho 2 usbuuc gudahood guddiga kor ka ogaanaya oo howlahooda hagaaya oo ah guddi heer wasiir ah iyaguna 45 cisho kadib ayay la soo howlgeli doonaan markay muddo shaqeeyaan waxaasoo dhanina waxay ka dhici doonaan Djibouti sida haddaba shirku uga dhacay waxaan rajaynaynaa haddii alla yiraahdo in ilaahay ummadda Soomaaliyeed isu carfiyo waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga calaameeyo dadkii halkan isugu yimid ee labada dhinac ahaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ka socday runtii jawi bisayl iyo isu nuglaan iyo isu garaabid iyo fiirin mustaqbalka in wixii ummadda Soomaaliyeed meelay joogaan badan u ah in laga wada hadlo meesha ugu fiicanna la dhigo intaas waxaan ku dari lahaa oo aan jeclaan lahaa inaan ku gabagabeeyo aad iyo aad waxaan mar kale ugu mahad celin lahaa madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo dowladda Djibouti aan ognahay sanadkii koowaad ee 30 sano ee dagaalka sokeeye socday sanadkiisii koowaad inay nala bilaabeen ilaa ay haddana gacanta ku hayaan si ay u xaqiijiyaan ummadda Soomaaliyeed dagaalka sokeeye iyo kala go'a iyo waxa ku dhacay inay la xaliyaan isu geeyaan xaqiijiyaan walaalo meel taagan oo iyagana hiil siin kara ayagana hiil uga baahan inay noqdaan madaxweyne Ismaaciil iyo intii ka soo qayb gashay taageertay kala ku dartay ee saaxiibada Soomaaliyeed ee regionka iyo caalamka ah aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa wabillahi tawfiiq